السلام عليكم دمان أصحابتنا ميلو الباقي دونيدو كجوكتان كسو دوادا برنامجكينا سوحنا معاكم إدين ودا ساكي فضلا جنالكينا قوين اوفيشال هدادكو عصوبتا سبسكرايبka hanaga hilmaamin laba nin oo hal isla guursaday hal gabar dalka Kenya laba nin oo u dhalatay dalka Kenya ayaa ku heshiiyay inay isla guursadaan hal gabar oo ay shukaansanayeen iyaga oo iska warqabin gabadhan ayaa xiriir la lahayd labada nin muddo 4 sano ah sida muuqata waxay gabadhan diiday in labada nin midkood ay xulato qareeno ku sugan dalka Kenya ayaa sheegay in guurkan sharci ahaan la diiwaan gelin doono haddii ay keenaan cadeymo muujinaya in arrintan ay dhaqanka qabiilkooda qayb ka tahay wargeyska Daily Nation ayaa ka soo xigtay mid ka mid ah raggan oo lagu magacaabo Mwendo in heshiiskan ay qoreen kadib markii iska war heleen in labadaba gabadhan ay xiriir la lahaayeen sarkaal ka tirsan booliska la shaqeeya dadka xaafadaha ayaa ku qanciyay labada nin inay isla guursadaan gabadha kadib markii uu arkay iyaga oo dagaalamaya heshiiskan ay kala saxiixdeen ayaa qoraya in ay joojin doonaan dagaalka oo mid walbana uu fiirsan doono maalintiisa Mwenda oo ka mid ah labada nin midkood ayaa sheegay in uu isaga bixin doono lacagta meherka waxa uu leeyahay labada waalid ee gabadhan way ogolaadeen arrintan waa dhacdo la yaab leh wallahi